kulan wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiin meel walba joogtaan soo dhawaada halkan waxaan idinku soo gudbinaa wararka dhacdooyinka warbixinada caalamka kuwii ugu dambeeyay maalmihii la soo dhaafay waqtiyada soo aadanba waxaan markaasi halkan idinku soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay dhanka doorashada dalka Kenya oo ilaa iyo haatan shacabweynaha aad u hadalhayaan xilli doorashadu ay tahay mid markaasi xaaladii ugu xumeyd sii galaysa marka laga eego dhacdooyin laga soo wariyay maanta xarunta codadka doorashada madaxweynaha lagu tirinayo ee Bomas of Kenya iyadoona isku dayo laga sameeyay sidii loo jabsan lahaa systemka IEBC ku shaqeysa ee markaasi tirinta codadka iyadoona markan ay noqonayso xaaladda mid waji kale u yeelayso marka ay maxkamad maanta daaqada ka tuurtay kiis haddii madaxweynaha ninka tartamaya ee William Samoei Ruto iyo saaxiibkii ku-xigeenka Rigathi Gachagua loo doorto madaxweyne aysan noqon doonin kuwa si rasmi ah xilka ula wareega isla markaana dhaarta la weydaarin doono dhanka kale xisbiga Azimio la Umoja ee uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo Raila Amolo Odinga ayaa waxa markaasi mid kamid ah agaasimayaashiisa xisbigaasi laga tuuray daaqada isla markaana uu ku hungoobay sidii uu markaasi ku noqon lahaa mid kamid ah xubnaha dawladda ee xisbigaasi ku matali lahaa dhanka kale Nakuru dhacdooyin cajiib ayaa laga soo warinaya kadib markii inta badan kuraastii markaasi doorashadoodu ka dhacaysay deegaankaasi ay ku guuleysteen dumar haddaba tirada ugu badan iyo waliba qaabka ay ugu guuleysteen ayaana eegi doonaa dhinaca kale waxaa la soo warinayaa dhanka Northeastern in markaasi uu ka jiro dhinaca Northeastern waxaa la soo warinayaa inuu ka jiro markaasi isbedel dhanka kuraas dad laga filayay balse mid markaasi uu ka soo hoos baxay isla markaana laga guuleystay kuwa si aad ah loo hadalhayay 24 saac ugu soo dambeysay dhanka kalena senatarka markaasi ka soo baxa Garissa Township ayaa waxa uu taariikh cajiib ka sameeyay iyadoona warbaahinta Kenya guud ahaan ay hadalhayso dhacdooyin horena lagu soo xasuusanayo dhinaca kale waxaa jira dagaal markaasi ka dhaxdhacay ajentiyada ama xubnaha kala matalaya xisbiga UDA iyo waliba Azimio la Umoja iyadoona markaasi ilaa iyo haatan la xaliyay gudoomiyaha ururka doorashooyinka iyo waliba xuduudaha Kenya ninka lagu magacaabo Wafula Chebukati inuu markaasi aad ugu soo celcelinayay 24 saac ugu dambeysay in shacabka Kenyaanka ay markaasi ilaaliyaan nabadda taa oo aan fariir ku keentay isla markaana aad looga hadalhayo haddaba warbixinadaasi ayaan markan eegi doonaa waxaana stuudiyaha gula sugan Cukaash oo markaasi aad ula socday xaaladda guud ee doorashada dalka Kenya iyo waliba dhacdooyinka maanta laga soo wariyay xilli la sheegayo dagaal inuu ka dhacay gudaha xarunta Bomas of Kenya oo markaasi tirinta codadka doorashada madaxweynaha ee markaasi isku hayaan Raila iyo waliba Ruto la socday Cukaash soo dhawow xaaladda guud ee Nairobi iyo waliba guud ahaan Kenya ku hormar haddii aan ku hormarno guud ahaan dalka Kenya amni baa ka jira dadka shacabkan waxaa loo sheegayaa inay ammaankooda inay ilaalsadaan isla markaasina aysan ku kalsoomin doorashada hadda dhacday waxaa keentay khalkhalkaas in shacabka loogu baaqo in amniga ay sugtaan kadib markii ay cod tirinta laga wado Bomas of Kenya markii ay dib u dhacday oo xilliga loogu talagalay ay kadib dhacday isla markaasina TV-yada dalka Kenya tira ay wadeen oo dadka shacabka ay daawanayeen ay hawada mataqaanay ka baxday taasi marka waxay keentay dadka shacabka Kenyaanka inay ka walwaleen oo si wax u socdaan ay kala garan waayeen sidoo kale waxaa jiray dagaal maanta ka dhacay gudaha Bomas of Kenya kaasi oo dhex maray ajentiyada u kala matalayo labada nin halkaasi loolanka ku dhex marayo waa Raila Amolo Odinga iyo waliba Ruto labadaas ninba ajentiyahoodii waxaa dhex maray dagaal kadibna waa la xaliyay dagaalkan wuxuu ka bilowday markii uu nin la soo galay boorso ay ku jirto laptop kaasi oo la doonayay in lagu jabsado systemka IEBC da ay ku shaqeynayso marka taas waxay keentay muran kadibna meesha waa laga saaray waana la dajiyay dadka shacabka waxaa loo sheegay in wax dhiba aysan jirin waxaa kaloo ay daba socotaa iyada oo maanta gurigiisa ay ku booqdeen erge ka socoto beesha caalamka ama mataqaanaa dadka kormeerayaasha ay u tageen William Samoei Ruto iyagoo mataqaanaa yiri dalka waa in la dajiya dhibaato inaan loo horseedin waxyaalahaas dhan mataqaanaa kala hadlayeen isagana si fiican mataqaanaa ugu faraxsanaa wuxuuna wax dhibaato ah ma jirto haddii ana ku guuleysto haddii uu ku guuleysto Raila isku mid weeye dadka shacabka waan dajinayna habeenimada xalay sidoo kale mar uu hadlay wuxuu yiri sida ay hadda u socdaan waan ku qanacsanahay waa haddii doorashada qaabka hadda ay ku socoto lagu wado laakiin waxa soo baxayo in markasta la isku dayayo in mataqaanaa system lagu shaqeynayo in la jabsado
ilaa iyo haatan cukash waa mahadsantahay xogaha guud aadna siinayso laakiin ruuto markan waxaa la sheegayaa inuu markaasi isagu hogaaminayo taa beddelkeedana laga cabsanayo in markaasi ninka lagu magacaabo Raila Odinga inuu ka horeeyo taa beddelkeedana loogu diray in haddii wax iska beddelaan maadaama tirinta qaar ay socoto la sheegayo in markaasi isagu lagu qancinayo haddii laga guuleysto inuu aqbalo maadaama ninkan inta ay socotay ololaha doorashada madaxweynaha ugu jiray inuu hadallo markaasi kulkulul oona keeni kara in markaas dagaal uu ka dhaco dalka uu sheegay laakiin xilligan maxaa markaasi keenaya inay u tagaan korjoogtada iyadoo la ogyahay in markaasi ninka odayga ah ee gacan saarka la leh ninka xilka kasii degaya waa Odinga uu markaasi la kulmin korjoogtada uusan kala hadlin arrimaha iyo qaabka ay u socdaan maxaa Ruto keligii ku koobay waxaa ku koobay saan wada ognahay markasta xukunka waxaa ku guuleysta ama mataqaanay qabta xukuumadda markaas meesha joogta iyo qofka iyada ay wadato yaa ku guuleysto saas daraadeed marka waxaa laga cabsi qabay maadaama William Samoei Ruto uu dhowr mar mataqaanay isku dayo badan uu sameeyay isla markaasina la sheegay in isaga uu ahaa ninkii ka dambeeyay in uu soo saaro madaxweynaha dalka talada haya Uhuru Kenyatta oo waliba xitaa maxkamadda loo geeyay faldambiyada xilligaas mataqaanay dhacay saas daraadeed waxaa laga cabsi qabay in hadda dhibaato in uu sameeyo saas daraadeed waa in marka korjoogtada beesha caalamka markasta ay si fiican ula socdaan meesha wax marayo haddii uu dhib sameyn lahaana mataqaanay loo sheego oo la yiraahdo dhib ma sameyn kartid haddaa isku daydana dee ugu waa la socdaa xataa feelkaadii ay maxkamadda caalamiga adduunka ICJ ma xirmin ilaa hadda weli marka waa cagajugleen iyo mataqaanay in shacabka loo tuso in mataqaanay lala socdo Ruto xaaladiisa taasi oo dhan waxaas oo dhan waxay keenaysaa marka in Ruto uu yahay nin dad badan oo malaayiin ay ku xiran yihiin oo waliba hadda loo badinayo in isaga mataqaanay uu xukunka inuu qabto maadaama markii la fiiriyo hadda waxa ugu badan mataqaanay codadka la helayo ama hadda meesha yaalo la leeyahay isaga mataqaanay u badan laakiin dhanka dawladda ay u xaglinaysa in mataqaanay odayga ay mataqaanay ay soo saaraan hagaag waa maasan tahay bal arrimahaasi iyadoo aan ku sii socon doono saaxiibada na daawanayana waxaa markaasi ogeysiinina inay inoo soo socdaan warbixino xasaasi ah oo la xiriira dhanka Northeastern dhulka Soomaalidu ay degto iyaguna taariikh iyo waliba dhacdooyin cajiib ah laga soo warinayo balse aan ku soconno maadaama si gaar ah isha lagu hayo dalka Kenya doorashada madaxweynaha waxaa la sheegayaa maanta in maxkamad ay daaqada ka tuurtay kiis cajiib ah oo markaasi caqabad ku noqon karo haddii uu markaasi guuleysto Ruto iyo ninka ku xigeenka u ah ee sharaxan Rigathi Gachagua bal kiiskaasi maxaan kala soconnaa bulshadana maxaad uga sheegi kartaa kiiskani maxkamadda hore loo geeyay taasi oo la doonayay in Ruto iyo ku xigeenkiisa haddii ay guuleystaan in la dhaarin karin marka caqabad xoogan bay mataqaanay ku ahayd taasoo ku tusinayso in marna aan lala rabin in ay qabtaan talada waayo waxaa la leeyahay xitaa hadday guuleystaan lama dhaarin karo laakiin soo sabab soo markaasi dalka ma gelin karto xaalad cakirnaan iyo dagaal iyadoo la xasuusto in dalkan uu u nugul yahay dhanka dagaalka oo 2007 iyo 17 wixii dhacay markaas ahayeen wax mahadhadooda ilaa iyo haatan dadka qaar ay ka sheekeeyaan nidaamka maxkamadaha way ka madax bannaan yihiin dawladda sidaba marka taasi waxay keentay in ay daaqada ay ka saarto maxkamad si dhibaato u dhicin haddii laakiin ay aqbali lahaayeen dee iyaga horseed u noqon lahaa in dalka dhibaato ka dhacdo marka kiis loogu talagalay in lugta loo geli lagu caqabadayay mataqaanay ahayd laakiin maxkamaddu markay aragtay in dhibaato ka imaan karta ka imaan lahayd ee daaqada ka saartay marka kiis cajiib ah oo dadka Kenyaanka aad ula yaabeen yu mataqaanay uu noqday oo la yiraahdo labadana ay guuleystaan marna yaan la dhaarinin waa dhibaato xoogan bay laftaada mataqaanay waa hagaag waa mahadsan tahay wali waxaan bartanka kaga jirnaa saaxiibayaal tabinta tooska ee xaaladaha ugu dambeeyay dhacdooyinka dhanka doorashada dalka Kenya iyo waliba qaabka ay wax u socdaan inagoo ku sii siqeena barnaamijkeena qaybihii dhexena sii marayno arrimaha Northeastern waan u sii gali doonaa Ukash halkan waxa inoo yaalo taariikh cajiib ah uu sameeyay Abdul Haji laakiin kama hor dhacayo bal markan aan aadno dhanka iyo Azimio la Umoja oo markaasi ah xisbi ay ku midaysan yihiin ururo dhowra Jubilee ODM iyo waliba kuwa kale waxaa la sheegayaa in markaasi agaasimayaashooda ama maamulada kuwa ugu sareeya xisbigan in uu markaasi la weydaariyay hogaaminta deegaanka laga soo dooran lahaa Gideon Moi waa nin markaasi aad loo yaqaan oo madaxweyne hore
dalka uu kasoo noqday aabiis oo isagu dhintay waqtiyadii tagay bal arrintaasi maxaa naga siin kartaa faahfaahin xilli xisbigan uu yahay mid markaasi hogaaminayo tirada ugu badan ee markaasi deegaan doorashada embiyada kasoo galay inuu hogaaminayo bal iyada haddii aad hal iyo laba ka tiraahdo waxaan ognahay Gideon Moi waa ninkii madaxweyne hore ee dalka ayaa dhalay saas daraadeed laba jeer ayuu mataqaanaa sanad uu soo noqday waxaana uu kamid ahaa agaasimayaasha Azimio la Umoja oo uu hogaaminayo Raila Amolo Odinga saas daraadeed wuxuuna kasoo galaa Baringo waa deegaanka Baringo ismaamulka Baringo kasoo galaa saas daraadeed marka waxaa dhacday in senator laba jeer hore uu soo istaagay waxaa kaloo xusid mudan inankan inay haddana qaraabo dhow inay yihiin madaxweynaha ninka hadda loo tirinaya Ruto inay qaraabo dhow yihiin weliba deegaankan isku deegaana yihiin yaa waxaa dhacday marka in uu Raila asaga saaxiib la yahay waana ninka la doonaya sanadka dambe in mataqaana la soo istaajiyo oo odayga ku xigi doono la raway saas daraadeed NTV oo asaga mataqaana uu leeyahay haddana waxaa la sameeyay in KTN in haddana codbixintii ay sameynaysa ay Ruto u xaglinaysay maxay u xaglinaysay marka waxay doonayeen inay sumcad ku yeeshaan dadkiisii laakiin ciidda kalenjiinka asaga ka dhashay iyagoo mataqaana ku xumeynaya odayga iyo asaga tuureen sanadkan hagaag weliba deegaankan ku darso xisaabta Baringo maadaama kalenjiinka ay kasoo jeedaan boqolkiiba boqol codadka ugu badan waxaa markaasi ku guuleystay Raila Amolo Odinga oo marka aan iraahday William Samoei Ruto oo markaasi isagu ka helay hagaag Ukaash weli bartanka ayaan kaga jirnaa dhanka kale Nakuru arrinta dhacdada cajiibka saaxiibada hadda nagu soo biir waan u sheegaynaa arrin cajiib ayaa maanta ka dhacday balse waad nala joogtaa hadda Ukaash ayaa inooga dhacay bal arrinta Nakuru ka dhacday maxaa markaasi ay kaga duwan tahay ismaamulada kale ee dalku ka kooban yahay 46 kale waxay kaga duwan tahay horta ismaamulka Nakuru waxa ka dhacay wax lala yaabay oo mataqaanay 47 county ee dalka ka jiro aan ka dhicin taasi oo ah dumarka intaba waxay raan jireen boqolkiiba 30 naga sii kootada haweenka oo markaas United Nations ay markaas inta badan raadiyeen laakiin tii wax ka duwan baa ka dhacay ismaamulka Nakuru waxay lahaayeen 3 kursi baarlamaaneed bay lahaayeen barasaabki 5 kursi bay lahaayeen aan dhahay barasaabki wumar iyaga ay lahaayeen sanad dhammaan wax ku guuleysay dumar meeshaasi waxaad garan kartaa maxaa markaasi ka dhigaya arrin cajiib ah maadaama misxilka iyagu dumarka wax u gaaraa jira maye waxaa loo ismaamulka Nakuru waxaa mayn dumarka ku badan aad weyn زمننا بدومر كاس كبدا مركا inta badanna ay ku guuleysteen xataa hal xabahta maysan siin ragga sanadkan هذا وين والله waa dhacdo cajiib laakiin faa'iido ayaa ugu jirta dadka deegaanka oo markaasi ah kuwa aad u nugul Nakuru una baahan arrimaha facility-ga ee markaasi bulshada u baahan tahay kaabayaasha dhaqaalaha waana laga dhursugayaa sida ay noqon doonto isbedelka ka sameyn doona ragga kan naxariis badan yihiin waa dhici kartaa in mataqana ay bisel siyaasadeedna ka muuqato maadaama dumarka ay soo doorteen waxaa dhici karta marka in wax badan oo ay filayeen reer Nakuru inay heli doonaan maadaama ragga inta badan lagu tiriyo inay iska tuntaan in waxyaalo badan inay sameeyaan laakiin waxaan arki doonaa insha Allah in oo dumarka wax badan ay soo kordhin doonaan hagaag waa u mahsan yahay Ukaash intaas waxaan ku soo afmeerinaa qaybihii ugu horeeyay ee dhanka doorashada madaxweynaha iyo waliba deegaanada Down Kenya iyadoo markaasi ceeldaas xusid ay mudan tahay in markaasi deegaankaasi qof lagu toogtay isla markaana dhaawac soo gaara daraadeed mid kamid ah xubnihiisa muhiimka uu ku waayay balse inta uu galay ceeldaas oo iyadoo markaasi ahaa deegaanada Northeastern doorashooyinka kuwii ugu badnaa ee fadqalalada ka dhacay lana xasuusto in warqadihii lagu codeynayay iyo waliba ballot boxes ama sanduuqyada codeyntana la jijabiyay taa oo markaasi ka dhigaysa in deegaankan uu markaasi ka duwanaado deegaanada kale suncad dilina dadka siyaasiyiinta ee ka soo jeeda waxa markaasi Ukaash la sheegaya in qof uu markaasi lugta laga gooyay bal arintaasi maxaa sabab ceeldaas maxay kaga duwan tahay deegaanada kale ee Northeastern wallahi ceeldaas waxa ka dhacday doorasho muxuu ahaa aad loola yaab ka dhacday habeenkii u horeysay doorasho markii la qaban rabay waxaa la gubay goobtii codbixinta ayaa matana ayaa dab la qabsiiyay kadib markii IBC dadana ay ogolaatay in codbixintii halkii ka sii socoto haddana waa kii waraaqihii lagu codeynayay iyadana mataqaanay dadkii ay gogooyeen waa in wakiil isku dagaalay oo dhaawacyo meesha ka dhacay kadibna waxa meesha ka dhacday in toogasho halkii mataqaanay ka dhacday oo nin mataqaanay lagu toogtay dhaawaciisii markii istaaka la geeyay lugta laga jaray hagaag intaada u sii guda galeen toogashadaas ma askarta Kenya ee dawladda ayaa dishay oo aan iraahday toogatay oo si qasdi ah mise dad ayaa lagu kala ciirinay rasaastaas maya rasaasta marka dadka lagu kala ciirinay laakiin askarta mataqaanay xabadaas ku dhufatay way waxaan ognahay
Kenya inta badan waxa qori wato waa ciidan oo mataqaana qof kale oo qori la ogol yahay mataqaana ma jiro marka dadkaasi waxa xabada mataqaana ku riday waa dadka askarta ahaayeen iyagana mataqaana dhaawacay deegaankaasina wuxuu noqday in meel ugu horeysay Kenya qalaasa ka dhacdo ayuu mataqaana ayuu noqday waayo kursigaasi aad ba mataqaana loogu loolamayay doorashada mataqaana aad kursigaasi waliba waxa xusid mudan in ninka lagu magacaabo Keenan aadna loogu saadaalinay laakiin xogaha aan helayna ay sheegayaan inuu ku bixiyo dadaal wax walba inuu heli lahaa hatta hadee ay noqoto in dhiig u daato sida hadda tan ka dhacdo aad weyn waa dhacdayba waa tan taagan weeyo dad ba mataqaana ku dhintay dad ba ku dhaawacmay muxuu ahaa doorashadii in khalkhal la geliya la isku dayay isku day badan ba mataqaana isagii hadda kursiga ma helay mise ma wala weydaariyay aad weyn waa mahadsan yahay Cukaasha ayuu kaasi ahaa ku soco Northeastern ayaan weli bartanka kaga jirnaa Shukran iyo waliba Udgoon gabar la yiraahdo Shukran waa xasuusanaa in sanado hore ee markaasi ka tirsanay dawladda balse siyaasadda kuma cusbo Udgoon lafteeda dadaal uma yareen oo markaasi waa siyaasadda aad bay markaasi ugu dhoondalooshay laakiin sanadkan ilaa iyo 48 saac wixii ka horeeyay tirinta codadka deegaanka ay ka soo galaan labadan gabdhood ee markaasi ku loolamayeen Udgoon ayaa u horeysay balse xilligan waqtiyo ka hor intaan barnaamijka soo gelin sida ka dheehanayna shaashadaha iyo waliba xogaha aan helayna in Shukran markaasi ay ku guuleystay kursigan shahaadadiina la siiyay maxaa isbedelay waxa isbedelay horta cod tirintii baa mataqaana khalkhal baa mataqaana galay habeenimada xalay ilaa maanta cod tirintii markii ay socotay waxa uu horeysay gabadh la yiraahdo Udgoon oo saaka markii waaga bari 25 kun bay mataqaana haysatay kadib marka IBC 25 kun cod bay wadatay Shukran mataqaana waxay wadatay 15 kun marka 10 kun bay mataqaana ka horeysay kadib IBC waxay sheegeen in cod tirintan la sameeyay inay khalad tahay oo waxyaalo fara badan isdamariyay saas daraad waa in dib loogu noqdo la yiri cod tirintii dib baa loogu noqday markii la tiriyayna oo iyagoo labada dhinac ay si fiican u fiirinayaan la tiriyay waxa ku soo baxday Shukran oo horay mataqaana kursigaasi u haysatay laakiin sanadka u dambeeyay mataqaana laga qaaday ya hadda dib markale ugu soo noqotay iyadana warqadii la siiyay oo loo dhaariyay laakiin Udgoon way diiday arrinta iyada waxay tiri ma aqbalayo maadaama aniga mataqaana marka hore aan hogaaminay haddana mataqaana in laga shubtay yaan tirsanayaa bay leedahay laakiin IBC waxay ku dhawaaqday inay siisay warqada gabadha Shukran waa hagaag ismaamulka Garissa waa mahadsan tahay Udgoon aan iraada Shukran taariikhda ay sameysay markaas in codadka dib loogu noqdo dibna ay ugu guuleystay waxay kala mid tahay markaas taariikh cajiib ah iyadana sameysay governorka ismaamulka Kirinyaga oo lagu magacaabo Anna Waiguru oo iyadu la sheegay markii hore inay guuleystay laakiin markay tagtay iyadii ajantigeeda socda xarunta polling stationka ee markaas laga codeynay codadkana lagu tirinay dib loo tiriyay kuna guuleystay waa taariikh cajiib oo dumarka ay dhigayaan waa mahadsan tahay bartanka ayaan kaga jirnaa qaybihii ugu dambeeyay iyo waliba qodobkii ugu dambeeyay senatorka ismaamulka Garissa County ee townshipka Abdul Haji oo markaas yahay inaan u dhalay ninkii dhintay Allah naxariistay wasiir ka soo noqday mar soo noqday hogaamiyaha barnaamijkii lagu magacaabayay BBI Yusuf Haji wiilkiisa taariikhda cusub ay dhigay iyo waliba kursigan taariikhda u yaalay asaga uu ka sameeyay maxay tahay maxaase warbaahinta Kenya ay aad u hadal hayaan waxay u hadalhayaan Abdul Haji horta waxa dhalay Yusuf Haji Maxamed Yusuf Haji ma taqaanay dhalay oo ahaa wasiirka hore ee gaashaandhigga dawladda Kenya xilligii uu joogay mataqaana Moi Kibaki mataqaana uu ahaa waxa kale oo xilligii amka abihii dhintay kadib isku raaceen shacabka ismaamulka Garissa in kursigan aan lala tartamin ee wiilkaas Abdul Haji la siiyo waxa kale oo xusid mudan Abdul Haji wuxuu ahaa askari Kenyan ah isla markaasina waxa uu si toos ah u badbaadinayay shacabkii Kenyanka Westgate waagi al-shabaab markii ay galeen Westgate ninkii badbaadinayay muxuu ahaa argixisada leenay uu mataqaana yahaa halkaas taariikh buu ka dhigay oo caalamka mataqaana xilliga ay barteen yuu ahaa kursigaasina waxa uu noqday markii loo fiirino Eastern ninka kaliya kursiga dib ugu soo noqday mataqaana yuu noqday senatorada Northeastern Mandera kuwa kale way tageen laakiin isaga uu ku soo noqday aabihiina laba jeer mataqaana soo qabtay laakiin mar asay wada wadaageen haddana asaga mataqaana dib ugu soo noqday iyadan uu ognahay barasaabka hore ee Garissa inay si weyn isku hayeen isla markaasina daacayad fara badan uu hawada u marin jiray oo uu dhihi jiray Abdul Haji حتى في Soomaaliya yaqaan ma aan dalka ku maamulaya Abdul uu yiri meesha mataqaana meel Soomaali u baahan ma wax qowd u baahan tahay marka Abdul Haji taariikh xooggan meeshaas ka dhigay oo ah in isaga mataqaana waxyaalo fara badan isku biirsaday oo ninkii Westgate ka badbaadiyay laba in aabihi mataqaana waa wasiirka hore ee gaashaandhigga saddex in mataqaana isku raaceen ismaamulka Garissa dhammaan in isaga kursiga la siiyo haddana marka la mataqaana kursiga uu dib u soo ceshado marka
taariikhyahaas oo dhan waxay kutusinaysaa marka cabdul xaaji halka uu ka joogo kenyaanka. waa hagaag cukash reer xaaji ma las oran karaa waxay taariikh ku leeyihiin dalka Kenya هذا وين because waxa weeye hadda dacwad oogaha dalka Kenya waa Nuruddin Xaaji wey isna waa Yusuf Xaaji wiilkiisa weyn waa dacwad oogaha dalka oo aan arkayni maalin marka hadda la isku qabsado wax ma taqaanay ama dambi dalka ka amarka bixinaya marka abahood wasiir gaashaandhiguha ninkan ma taqaanay Nuruddin Xaaji waa dacwad oogaha ninkan hadda senator wey waa marka laba uu noqonayo marka waliba aan kugu daray abahood Yusuf Xaaji wadadan hadda First Avenue Second Avenue midda First Avenue asaa lagu magacaabay hadda محمد يوسف حاجي افنيو يا كقرن waa hagaag marka ugu dambeyn si guud marka loo eego reer xaaji dadka Kenyaanka xitaa marka ay timaado in qofka embeesa lacag ugu diro oo uu soo qabto tusaale Cukash Xaaji oo kala dhao adiga waxay ku oranayaan ma reer xaaji ayaa tahay ma Yusuf Xaaji tahay ma way garanayaan aad u garanayaan because aabad ba marka madaxweyne inay ka noqdaan ma laga yaabaa maadaama raggan haddu ay yihiin kuwa suncad kula dalka Kenya isla markaana aad wax u bartay wax u diidaya ma lahan because waxa ka garan kartaa hadda wiilka laga soo doorto ismaamuka meesha la yiraahdo masalani ma aha waa dhankan Kenya Magori waxa lagu soo doortay 25,000 oo cod baa lagu soo doortay yaa uu ku soo galay saas daraadka dooranayaan waa Jalowey وجنيد محمد أكرم جنيد marka dadka dooranayana waa Jalowey waxay ku soo dooranayaan waxa way wax qabadkiisii bay arkeen marka reer xaajina waxay arkeen Kenyan ka arkeen in ay mataqaanay meesha ay qabtaan ay ka soo dhalaalayaan saas daraadeed in madaxweyne wax u diiday malaha aad ayuu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa Cukash oo markaasi aad indhaha ugu hayay xaaladihii ugu dambeeyay doorashada dalka Kenya iyo waliba jawiga sida uu yahay tan iyo kulantida intaan dib ugu kulmayno barnaamij iyo warar ka duwan kuwan waxaan idinku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo.